bulshada Soomaaliyeed kuwooda ku nool dalka Turkiga ayaa baadigoob ugu jira ninkan waxayna doonayaan inay qoorta ka jaraan si uu ugu tusaale qaato qof kale oo Soomaali ah oo isku dayo inuu u gafo suubanaheena nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee ninkan idin muuqda ayaa laba mar u gafay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee taas oo xalay xilli dambe arka kicisay social media dadka Soomaaliyeed ayaa aad uga carooday tallaabada uu ku dhaqaaqay ninkan oo la magac baxay AK kadib markii laba mar uu u gafay suubanaheena nabadgelyo naxariis dushiisa la yeelay dadka Soomaaliyeed oo 99% ah kuwa muslim ah waxaa ku cusub in loo gafo suubanaheena Maxamed waliba uu u gafo qof kale oo Soomaali ah inkastoo dhowr mar la arkay kuwa Soomaali ah oo sheegtay inay diinta ka baxeen balse tani waxay ugu ku tahay Soomaalida gudaheed muuqaalo uu iska soo duubay muujinaya in ninkan wax dhibaato ah ama wax cadaadis ah aysan ku hayn aflagaadadii uu geystay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatee waxa uu bedelkeed uu ka walaacsanaa subscribe YouTube-ka laga noqday waa ninka loogu doondoonis badan yahay Soomaalida gudaheeda sababtuna waxay tahay in qof kasta oo Soomaali ah uu doonayo inuu dilo kaliya ma aha in hal mar uu u gafay nabigeena Maxamed balse waa markii labaad taas oo wax laga caroodo ay tahay ninkan ayaa haatan ku dhex dhoomanaya dalka Turkiga waxaana baadigoob ugu jira Soomaalida halkaas ku dhaqan iyo waliba booliska dalkaasi saacadihii la soo dhaafay dadka Soomaaliyeed ayaa siyaabo adag uga falceliyay aflagaadada ninkan uu u geystay Nabi Maxamed iyaga oo dadka intooda badan sheegayay in la dilo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda Turkiga ku sugan waxay hadda tartan ugu jiraan in ninkan ay qoorta ka jaraan si ay ugu helaan ajir iyo xasanaad dhacdooyinka noocan waa kuwa ku ceeb ah Soomaalida gudaheeda maadaama qof Soomaali ah haddana jinsiyadda kula sheeganaya uu u gafay nabigeena Maxamed kuwaas oo horey ay ugu gafi jireen gaalada ku nool wadamada caalamka tan ayaa u baahan in dadka Soomaaliyeed ay laba jibaaraan sida adag ay uga falcelinayaan gafka loo geystay suubanaheena waliba uu u geystay nin sheegta magaca Soomaaliyeed